Komishinka doorashooyinka qaranka Somaliland ayaa maanta kulan la qaatay mudanayaasha golaha guurtida Somaliland. Kulankan uu hogaaminayay gudoomiyaha golaha guurtida Mudane Salebaan Maxamuud Aadan isla markaasna ay warbaahintu dabajoog ka ahayd ayaa markii uu soo idlaaday kulankani waxa warbaahinta si wadajir ah ula hadlay gudoomiyaha komishinka doorashooyinka qaranka Somaliland Mudane Cabdilqaadir Imaan Warsame iyo waliba gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland waxaana hadaladoodii kamid ahaa وشقدي عادي هيد كده حيسي هيدا دولي ugu sasareeya qaranka ayuu baan saaqownimi walaha lagu yeeray walaha guurtiga oo kulankoodii fadhiya waan isxog wareysi bay ahayd waan isxog wareysanay waana isfahamay xog baan siinay iyaguna xog bayna siiyeen isfaham wanaagsan baan halka ku kala tagnay iyo inoo doorashadii sida u mudeeyeen loo galo saxaafadahan komishinka doorashooyinku intaas uma hadda idoo qoranaynaan ku soo koobaynaa warbixinteedina aad bay ugu qanceen si qurux badan bay ugu qanceen halkay wax noo marayaan tii hoose ahayd komishinka dhexdiisa halkay farsamaha noo marayaan iyo tii kalaba ee dibadda u baxaysayba labadaba way ku qanceen si wanaagsan bay ugu qanceen idinka miidiyahana kulley waxaan doonaynaa inuu dhawaan saragno annaga idin yeelina si dhaqso ah baan ku yeelina markaas aynu kala bogan doonaa wixii warbixina ee aanu gudbinayno dadweynaha kan waa kii hay'adii dawliga ah dadweynaha noo dhiman kaana insha Allah si dhaqso ah ku yeelina waxay kordhiyeen oo aan ahayn doorashadii qabsoomi maysana ma ahayn ma jirin eedina waxay saareen labada gole iyo madaxweynaha iyo axsaab waxna waa ka jireen si kastaba muddooyinkii ugu dambeysay waxa uu khilaaf badani ka dhex taagnaa axsaabta siyaasadda qaranka Somaliland iyo waliba guddida komishinka doorashooyinka qaranka Somaliland kuwaas oo isku waafaqsanaa waqtiga rasmi ee qabsoomayso doorashada golaha baarlamaanka Somaliland waa Maxamed Cabdilaahi Maxamed Andar CNA TV magaalada Hargeysa.